Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Galabta waxaa noo wadaa casriir oo fudud oo ilmaha ay ka heli doonaan oo macaan badan. Hala soo tijaabiyo insha Allah. Ilmaha way ka heli doonaan si qurux badan ay kugu cuni doonaan. Ilmahana way kugu cayilin ay fitamiinisa ka helayaan. Mar walbana muhiim u tahay ilmaha in casriir la siiyo ama qadada kadib inta cashada la gaarin wax u dhaxayn ama galbihi oo kale in wax la siiyo muhiim u tahay. Marka waa kaasaa cunno macaan badan oo soo turno fudud oo simple ah oo guri walba laga helayo cunnada gurigaada ku taala marba nooc ugu sameysay ilmaha sidii kugu cunaa si qurux badan insha Allah. Marka soo dhawaada waxyaabahan ka sameysanay waa yaanyo sibirsaan laba xabo oo biseylan soo qaatay. Waxaan ka sameysan doonaa ketchup ama juice aan ka diyaarsan doonaa tamaandada ama yaanyada iyo cheese aan soo hooshay. Cheese-kan ilmaha u fiican yahay caanaha fadhiyo ama cheese-ka ama subaga ilmaha wuu caawinaya fitamiinis badan oo ka helaya marka mar walba loogu dadaalo ilmaha insha Allah. Casriidana waxaa la siin karaa 8 bilood wixii ka weyn 7 bilood xitaa waa la siin karaa marka laakiin 6 bilood la siin karin insha Allah cunug 6 bilood oo jiro casriida ma qaadan karo laakiin inta kale way qaadan karaan 7 bilood iyo wixii ka weyn marka waa ka soo dhawaaday hadda waxaan jarjaranaynaa yaanyadii marka jarna kadibna dabkan soo saaran doonaa ibtaati macaan aan ka hagaajin doonaa si qurux badan oo macaan badan beebiyaasha cunin Allah u daaweeyo inta haysan Allah sii inta haysatan Allah u barkeeyo الله آمين ومحسنتين صدق قروح بدنا أي تغيير سان شكرا 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 إنها مرة بني مهد علي كما دالا إن شاء الله بركواكا سانيايدي نصفي عن أصول جرجرانينا قدارة المرة والبهال نظيفية الماء إن لغا نظيفية وناكسن مرة والبمركا عناد مكي هويد عنوغ وحياو وباهنيا معلنها وجدول أصميستو معلن بولبحو عناي عنوغ أكتهاي عنوغ سقروح وكوردونا إن شاء الله مركا janalkaana waa mahadsantihiin dhammaan caruurta quseeyaas qaasatan maam faaste ama hooyooyinka cunugga koowaad oo kale wuu caawinayaa kaalin weyn oo ka qaadan doona insha Allah marka waa kaasa janalka siboodka laba laab ha looga dhigo marka dabkii had soo saaranay taawadii kadibna yaanyadeena wax yaraan soo karneynaa maadaama ay bisashahay laakiin si qurux badan inay noqoto rabnaa wax yaraan soo dabka soo saareynaa kadibna waa soo shiidan doonaa sidee ku soo baxdana وأصل أرك دونا داو شوعان مقال كان هك عاجز إن شاء الله ومقال يرو سيمبل أو عسرية مروى البرنجد ولد عرور تدمان وكود جيران بيج كتب هلو راعو انت عصب سودا بعد انت رجوكتن ومهسنتهين جزاك الله خير وحير عصبة أيام قصود درسدي marka cusbada waxay siinaysaa dhadhan macaan badan hana ka badin cunugaada hadduu sanadka yar yahay cusbaha isticmaalin insha Allah cunugaada laagsan hadduu gaaro cusba ama spices labaduba isticmaali kartaa saliidii cusbada iyo sokorta ilmaha markay yariin uma wanaagsano marka laga yareeyo insha Allah bini'aadamka oo dhan ay u wanaagsaneen marka waa kaas ay hadda way noo soo jajabtay ama yaanyo sida rabna juice-ka ka soo dhiganay kadibna waa soo shiidanay weelkii aan ku diyaarsanayna ku soo shubanay waa juice yaro macaan badan ka jabo intaas ku jiro ama bacteria ka buuxda ama keedsan oo intaas dhalo iskaaga jiray ilmahaada iska siin waxyaabaha sajalka ilmaha yaa loo joogteenin mararka qaar waa loo dhexgelin karaa laakiin joogto ma wanaagsano haddana waxaan diyaarsanaynaa bataatigii waa bataati macaan meesha bataati kasta baradho waa isticmaali kartaa laakiin bataatiga si wanaagsan cunuga 8 bilood hadduu ka yaryahay bataatiga high laakiin cunug 8 bilood hadduu gaaro baradhada waa siisan kartaa insha Allah marka soo dhawaada ilmaha jadwalka iyo cunooyinka qaadan karaan cunooyinka oo bilooyinka waxa dhan waa ka soo hadlaya insha Allah marka janalka ku xirnaada hala saboodan insha Allah waa mahadsantiin marka waa kana waan soo masaajeynana cusbo yar filfil ku soo darsaday bataati macaankii kadibna si fiican oo soo xashaaya ama inuu ii gala rabaa dhanaanka kadibna sida uu hagaagsan si qurux badan oo hagaajin doona oo fudud oo simple ah oo hooyo walba ay sameysan karto oo fudeed insha Allah hadda waxaan soo saaran taawadii waxaan marsanaa butterka igama hara aniga butter anoo wax sameeyahay butter wadina wax ma jira ku dhaha butterka ama subag ilmaha uu fiican yahay loogu dadaalo hana ka badinin marka butterkaan dufan saaid mala dufankiisa uu xadidan yahay butterka isticmaalay midka high oo dufanka ma wanaagsana marka dufankiisa uu yar yahay butterka waa kaas marka butterka soo marinayaan taawada dhan macaan uu sameeynaya qurux ilmahana uu fiican yahay marka casriin marka siinaysa ilmaha saamar walba casriin uu sameey ilmaha way ka heli doonaan marba nooc casriin kala duwan cunooyinka kala bedelan dhammaan janalka waxyaabaha healthiga ama caafimaadka ayaa ugu boga doontaa haddana marka noo soo dhalaala kadibna waxaa soo saaraneynaa bataati macaankii si qurux badan oo simple oo hagaajinayna ilmaha ay ka heli doonaan biisa miyaa mase
adaaba sheegi karnaan ku dheh biisana wuu ka macaanaay inta cuntaa sheegi karto marka la soo tijaabiyo inuu macaan in kala bar war ha leega soo sii qaybta commentiga inta samaysata has ka soo muujisa insha allah codkaygana xoogaa hadduu boosiis yahay cafwan insha allah iga raali ahaada marka bini'aadan leeyahay mar walba lama dhammaystirno marka intaasna waa idinka raali gelinaya insha allah hadduu si fiican u soo safaneynaa ama safka sidaan rabnaa ka dhiganaynaa waan kala waxyara kala signan si isbees oo dhowtu iska dhigay maadaama jiis aan isticmaali doono kadibna waan soo sharxanaynaa waxyaabaha aan soo diyaarsanay yuuskii waxaan soo marsan doonaa iyo jiis mozzarella insha allah haddana waxaan soo marsanay juuskii ama yaanyadii aan soo diyaariyey kajabkii waa dhihi kartaa insha allah aan soo diyaarsanay marka aan kor ka marinaya kadibna jiiska kor marin doonaa biisa le miyaa adile kaala sheegaa ku dheh ka macaan biisa ka macaan ku dheh kana caafimaad badan marka waa kaas ilmaha mar walba cunno healthy hala siiyo waxay ka caawinaysaa jir ahaan iyo maskax ahaan inuu cunugaada u koro cunug qurux badan kuu noqdo difaaciisa hay kuu noqdo cunugaada calo istaag kuma arkaysid jadwal qurux badan haddaa u samaysatid cunug loo appetite kaama noqonayo cunuga xilliyada ilmaha cuntada la siinayo waqti cayiman ha loo sameeyo aan waqti u sameeyo hooyo cunugaada si uu kugu wareerin insha allah mar walbana 2 saac kasta kadibna cunuga wax sii ugu yaraan xataa caano sii juice sii ama cunno fudud marna cunno caadi sii marna cunno fudud sii marka celcelinta ilmaha hadday badan tahay cunuga si qurux ku kori doonaa allah nala koriyo inta haysan allah siiyo marka ilmaha waxay u baahan daryeel laba laab 3 jibbaar u baahan yihiin marka haddana waxaa kusoo darsan doonaa insha allah jiiskii marka wuxuu naga caawinaya inuu macaan nooga dhigo quruxna nooga dhigo ilmahana uu wanaagsan yahay mar walba ilmaha loo isticmaalo insha allah dufanka oo dabiiciga dufanka saa'idkan ilmaha laga yareeyo insha allah wuu wanaagsan yahay marka waa kaas casriyo fududa nooga soo tuuray loo soo tijaabiyo ilmaha loo sameeyo way ka heli doonaa cunuga gacanta u saaran 4 jab 3 jab 2 jab wuxuu ku cunay enough ku filan tahay ha ku qasbin maadaama anaga hadda taabo aan soo saaranayno foorno waa ku duban kartaa kor iyo hoos aa ka shidanaysaa marka anaga hadda waxaan ku samaysanaa stoofka ama jikada caadiga oo gaaska marka wax yar oo biyo maadaama oo bataati biyo badan oo qaadin ama dab badan oo qaadin si ay taawada hadhow nolol kulaato oo hoos nooga madoobaanin ama waxyaabo kale ay keen dabkana laaw ama normal waaye daboolkana insha allah meesha ka duleelo waa soo shiri doonaa insha allah si uu naqaska dhan noogu celiyo oo ciyo noogu bislaado waqti badanna ma qaadanayo waqti yar oo fudud oo qaadanayo maadaama bataati dab ku qaadin haddana waa koo noo diyaar qaandada gelinaysa inuu bisil yahay bataatiga qof walbaaba yaqaanabo ama mindiya suri kartaa ama qaandadaada ku fiirsan kartaa ama inta soo qaadata gacantaada ku kala jabin kartaa waa kaas waa inoo diyaar batarkina waa inoo dhalaalay kadibna bataatiga noo dhex jijiifaa dhab cunuga isku sii koobkiisa caanaha u dhiibtid cawada casho xataa wax yaroo simbalaa siin kartaa marka mar walba ilmaha casriye muhiim u tahay ha loogu dadaalo insha allah way kula korinaysaa cunug haayo ku noqon doonaa insha allah haddana waxaa diyaarsanaynaa caanaha beebida aan u raacsiin doono raacsaneynaa marka caanaha biyo qandac mar walba ilmaha ugu qas insha allah cunugaada hadduu weyn yahay oo 2 sano oo ka weyn yahana caano qiyaastiisa oo qaadan karo mar walba ilmaha loo qaso caanaha biyaha ilmaha waxyaabo badan uma fiicno cunugana wuxuu ku dilaysaa inuu saa'id oo dhidid badan ama kaadi badan oo yeesho marka caanaha hadda waxaa soo diyaarsanay powder waaye waa nutrition oo powder ah qofka u baahan insha allah wuu heli doonaa qaybta comment soo muujiyo cunugaada lafiisa doo jilicsan yahay lafa adagoo strong ku yeelanaya calool istaag kaama yeelanayo cunugaaga cunug oo loo abtad haduu yahay waa kareysa doontaa insha allah powderkan soo tijaabiyo waa powder maasha allah ilmaha loogu bogay qaasatan wuxuu sii caawinayaa caruurta ilaa 12 jir waa la siin karaa hooyada nuujinta ku jirta taa powderkan way isticmaali kartaa waa high protein marka waa kaas high protein kaas uu qasay beebida caanaheedu qandac ah 3 daqiiqo 4 daqiiqo ameel dhigaysaa kadibna waa siisanaysaa asigoo qandac ah maasha allah ku dhahay macaanta carafta caanaha kaala arga ku dhahay marka ilmahana way ka helayaan mar walba ilmaha wax loogu daro powderkan haddii aad isticmaalaysid waa muddo bil isticmaalkiisa kadib haddana mid kale cusub aad dalba doontaa insha allah waa kana waa 2 waqti isticmaalaysa subaxdii iyo habeenkii cunuga hurdo qurux badan ku hurdaya lafiis way ku adkaanaya calool istaag kuma arkaysid loo appetite waa kareysa doontaa insha allah soo probay nutrition baby and protein
waxaa waaye nutrition oo border waaye marka insha allah sir lagan nutrition baby and protein janalka wuu yaalaa insha allah soo daabta inta arkin insha allah waa ka heli doontaan gabdho badan oo sistan ilmahoodana maasha allah markaa soo bandhigan sidaan qurux badan noogu soo baxay decoration yana usoo raacsiiyey juuskii iyo haray oo tamaandada aan soo sameysanay ayaa waxaa ugu soo daray kareem oo alman ah marka wax yar oo waxaan ugu soo sharxay sharaxaad waxaa haysta markaas ka dhigi kartaa ama waa iska dhaafi kartaa wax yar qumbaa korka ugu soo shubay wax yaroo macaan badan marna macaanka cunuga duu jecel yahay waa macaan midkaas midka kalena waa dhanaan cunuga dooqiisa ku cunaaya marka anin labaduba waa ku dhadhamiyey macaan way kusoo baxayaan ilmahana way ka helayaan mar walbana ilmaha dhanaanka qaaraa jecel qaarna macaanka jecel yihiin marka dhanaan iyo macaan labaduba u raacsiiyey cunuga jooskiisa cunaaya insha allah marka waa kaas allah noo daaweeyo waa mahadsantiin sida quruxda badan ii taageeraysaa mar walba kama daalo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye